xisbiga wadajir ayaa meel ka baxsan magaalada Muqdisho markii ugu horeysay xarun xisbigu uu yeelanayo ka furay magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxa xariga ka jaray xaruntaasi cusub ee laga hirgeliyay Garowe hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyay in xisbigu xarun uu ka furto halkan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa sheegay in muhiimad gooniya ay xisbiga u leedahay in markii ugu horeysay xarun ay ka furtaan maamul goboleedka Puntland deegaanadooda waxaana uu sheegay in dadka deegaanku albaabada ay u furan yihiin oo xisbiga ay ku soo biiri karaan maanta ay tahay bisha Febraayo 2 Febraayo 2019 waxaa sharaf weyn inoo ah inaan furnay xafiiskii xisbiga wadajir dowladda Puntland magaalada xarunta Garowe oo saaka noo suurta gashay inaan furno halkan runtii waa xaruntii ugu horeysay ee ka baxsan magaalada Muqdisho oo xisbiga wadajir leeyahay ee la furo waana fursad weyn ay u tahay xisbiga fursad weyn ay u tahay dadka reer Puntland oo xisbigan taageerayaashiisa iyo xubnihiisa intaba ah waxaan aad iyo aad mar kale kaga mahadcelinaynaa dowladda Puntland iyo shacabkeedaba oo sida dadnimada iyo ahalnimada leh iyo Soomaalinimada noo soo dhaweeyay fursad noo siiyay muddo usbuuc ah inaan magaaladan qaybaha kala duwan ee bulshada aan la kulanno madaxda mas'uuliyiinta isimada dhaqanka dhalinyarada haweenka iyo nolosha caadiga habeenkii magaalada ka jirta iyo midda baadiyaha inta fursad u helnay inaan ku qaadano runtii mahad ay balaaran ayaan u jeedinaynaa dowlad goboleedyada kale waan ku soo soconaa ayagana hadduu Ilaahay yiraahdo ay ugu horeyso Galmudug iyo Hirshabeelle iyo South West iyo Jubbaland intaba waan tagi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo xarumaha waa ka furi doonaa xiriirkaas nidaamka xisbiga in la xoojiyo way naga go'an tahay marka saaki waxaan isugu nimid inaan xaruntan furno waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha iyo xubnaha xisbiga wadajir ee ku nool deegaanka Puntland in ay xaruntan hawsheeda iyo sidii dhaqdhaqaaqa xisbiga looga dareemi lahaa ay u howlgalaan hadduu Ilaahay yiraahdo oo ay noqdaan dadkii firfircoonida aan ku arkay isbuucii aan joogay ay xisbiga iyo howlihiisa iyo arrimihiisa looga baahiyo dhammaan qaybaha kale ee Puntland aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin aad iyo aad ayaanan soo dhaweynaynaa arrintaas ayada ah iyo talaabtaas xisbiga hore u qaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir waxa uu sheegay in dawladda hadda joogta ay 2 sano u idlaatay sidoo kalena loo baahan yahay in nidaamkii xisbiyada badan ee doorashooyinka lagu gali lahaa laga hadlo maadaama ilaa iyo hadda wax war ay si dawladdu ka soo saarin dhanka doorashooyinka Calaadan Muumin Goobjoog Muqdisho